Islii waa xaafad ka tirsan deegaan doorashada Kamukunji, dhanka barina uga beegan bartamaha magaalada Nairobi ama xarunta ganacsiga ee Central Business District CBD ama Town. Bartamaha magaalada waxay u jirtaa 5 ama 7 kiiloomitir oo ku xiran hadba dhanka aad ka aadayso. Islii waxay caan ku tahay Soomaalida iyo ganacsiga xaafadda u bedelay xarun lagu soo dukaameysi tago ilaa bartamaha Afrika. Su'aashu waxay tahay sida ay Islii ku asaasantay asalkeedii hore, goorma ayaa isla deegaameeyay. waa maxay taariikhda ka dhaxaysa xaafadda Soomaalida oo hal mid isku noqday ilaa ay qaadato naanaysta Muqdisho yar. Islii aragtiya Soomaalina aragtay, taasoo micnaheedu yahay haddii aad isla timaado Soomaalidana waa arkaysaa. waa mid ka tarjumaysa sida xaafadda Soomaalida deegaan ugu tahay, waana deegaanka Soomaalida ku leedahay Nairobi weyn ee xarunta u ah dalka ugu dhaqaalaha badan bariga Afrika ee Kenya. kusoo dhawaada xog waran ku saabsan waayaha xaafadda Islii ay soo martay laga soo bilaabo asaaskeedii iyo saamaynta Soomaalida ay ku leeyihiin arqaaqa ganacsi ee ka socda iyo marka ay bilaabeen. Islii waxaa la aasaasay sanadkii 1921 xilliyadii gumeysiga boqortooyada Britain ee gacanta ku haysay dalka dib looga bixiyay Kenya, waqtigaasi oo ay ahayd maxkamada bariga Afrika. xilligaas Islii waxaa loo yaqaanay aagga bari ee Nairobi. Gumeystii Britain ayaa ujeedka ay xaafadda Islii u aasaaseen waxay ahayd inay dadweyne kala duwan ay waqtiga ku noolaa Kenya ay u kala saaraan isir iyo midab. in sidan la sameeyo ayaa sida taariikhda lagu xuso waxay ka dhalatay kadib markii uu cudur ka dilaacay halka loo yaqaanay Indian Bazaar oo ah suuq Hindidu ay lahayd. maamulkii gumeystaha ayaa si uu xal ugu helay cudurrada soo laabtay oo loo sameeyay nadaafad xumo waxa uu xil saaray barofesor lagu magacaabo Simpson. warbixinta Simpson ee soo baxday sanadkii 1914 ayaa ku talisay in dadweyne kala duwanaa ee ku noolaa Nairobi loo kala dejiyo isir. tusaale in reer Yurub ama caddaanka meel gooni ay degaan, Hindida meel gooni ah, Afrikaan kalena meel gooni ah la dejiyo. Soomaalida oo waqtiga ay Nairobi soo galayeen ay ahayd xilliga la dhisayay wadada tareenka Kenya iyo Uganda isku xirta, iyagoo ilaalo u ahaa gumeystihii sanadii 1899 ayaa ku noolaa xaafadda Kileleshwa oo aad ugu dhoweyd halka ay ku noolaayeen caddaankii. haddaba warbixintii iyo talooyinka Simpson ayaa keentay in Soomaalida laga barabixiyo xaafadda ay ku noolaayeen, iyadoo marka hore la doonayay in xaafad fog loo raro, laakiin markii ay diideen loo raro dhulka bannaan ee maanta loo yaqaano ama xaafadda Ingara ee ku dhow bartamaha magaalada Nairobi. gudoomiyihii waqtigaas ee gumeystaha Belfield ayaa Soomaalida waxa uu arkayay kuwa aan xaq u lahayn inay helaan magdhow maadaama qasab looga raray halkii ay ku deganayeen, wuxuuna rabay in loo raro Embakasi. go'aankaas ayay Soomaalidu si weyn uga dhidhiyeen. shir ka dhacay xaafadda Ingara ee Nairobi bishii Sebtembar 15 ilaa 17 Sebtembar 1916 ayay Soomaalidu uga tashteen inay ka hor yimaadaan in loo raro Embakasi, iyagoo qabsaday qareenno u dooda qadiyadooda. Soomaalida ayaa ku dooday in Embakasi aad uga fog tahay bartamaha magaalada iyo goobaha ganacsigooda iyo shaqadooda. Soomaalidu waxay qaar ahaayeen shaqaale u shaqeynaya maamulkii gumeystaha oo askar iyo turjumaano isugu jiray, halka kuwa kalena ay lahaayeen ganacsiyo. waxay kaloo Soomaalidu ku doodeen in korontadii biyaha iyagoo lacagtooda kusoo gashteen halka ay degan yihiin. ugu dambeyntii Soomaalidu waxaa lagu qasbay inay guuraan. markii ay Soomaalidu u soo guurtay xaafadda Islii sanadkii 1920 waxaa la dhihi jiray Islii Kambia Soomaali ama xerada ama aagga Soomaalida. Islii ayaan si fiican loo degin waqtiga, waxayna ahayd door geedo badan. magacayaan isbedelin ilaa laga gaaray 1960 waqtigaas oo magaciisa isku bedelay Islii oo ah magac maanta loo yaqaano. haddaba magacaasi xaguu ka yimid? sababta iyo halka magaca Islii ka yimid ayaa ah saldhigay ciidanka boqortooyada cirka Britain ay ka samaysteen halkaas. waqtigaas ay ciidanka cirka boqortooyada Britain waxay ku jireen dagaalkii koowaad. ciidankii garoonka deganaa ayaa badankood ka yimid magaalada la yiraahdo Islii oo ku taala Hampshire, Ingiriiska, waana sababta Islii loogu bixiyay xaafadda Islii. siyaasadii gumeystaha ee la doonayay in xaafadda dadka lagu kala saaro isir ayaa socon weysay, waxayna maamulkii gumeystaha u bedeleen in xaafadda si gaar ah u dejiyaan dadka asalkooda laga keenay Asia, siiba Hindida iyo Afrikaankii sare ee gumeystaha u shaqeynayay sida karaaniyaashii, kuwa dhismaha ka shaqeynayay iyo kabatulayaashii. Islii ayaa inkastoo Soomaalida taariikh ku leedahay haddana waxay ahayd xaafad ay aad ugu badan yihiin dadkii Hindida ama ka yimid qaaradda Asia. ilaa laga gaaray xornimadii Kenya sanadkii 1963 waxaa xaafadda aad ugu badnaa oo ganacsiyo ku lahaa Hindida gumeystuhu keenay Kenya. sanadihii dambe sidii waayihii hore ay Hindida ugu badan dadka Soomaalida oo waxaa lagu naanaysaa Muqdisho yar.
dagaaladii Soomaaliya ka dhacay horraantii sagaashamadii waxay keeneen in dad badan oo Soomaali ah ay soo galaan dalka Kenya si gaar ah xaafadda Islii oo markay Hindidu ku badneed inkastoo ay jiraan Soomaali ku nooleed markii la aasaasay. Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si weyn ugu batay xaafadda Islii waana ka dareemaysaa markaad dhex marto adigoo ugu qaadanaya inaad joogto meel ka mid ah dalka Soomaaliya. Soomaalida ayaa qowmiyadda ugu badan Islii waliba xaafadaha qaar ay degan yihiin qowmiyadaha kale sida Oromada, Booranta iyo kuwa kale. Islii ma ahan kaliya xaafad deegaan ah, waa xarun ganacsi. Sidee ayuu ku bilowday ganacsiga Soomaalida Islii? walow Soomaalidu xaafaddu u leeyihiin taariikh dheer marka la eego sidii deegaan ugu ahaayeen, haddana si weyn uguma dhex muuqan ganacsigeeda. Horraantii sagaashameedii markii uu dhacay qaran burburka ayay Soomaali badan soo gaareen dalka Kenya. Soomaalidii Nairobi u soo gudbi jirtay ayaa isku imaan jirtay albergo ama lodge la seexdo oo lagu kala war qaadan jiray. Albergadaas oo ahayd halka dadka ay ku kulmaan ayaa haween Soomaalidu waxay ka bilaabeen inay sariiraha habeenkii ay ku seexdaan, maalintiina ay u bedelaan dukaamo oo sariiraha dushooda ay wax ku iibiyaan. halkaas oo lagu magacaabi jiray Garissa Lodge, haddana la yiraahdo New Garissa Lodge, ayuu ka bilowday ganacsiga Soomaalida waana suuq ugu horreeyay ee markii hore ahaa albergo la seexdo habeenkii, laakiin loo bedelay goob ganacsi. Xaafadda markii hore waxay ahayd xaafad iska densan oo uusan ka jirin ganacsi weyn, laakiin Soomaalida ayaa ka dhigay xarun ganacsi oo ku xiran Dubai, Guangzhou oo Shiinaha iyo meelo kale sida Turki oo dhawaan ku soo biiray xiriirada ganacsi ee Soomaalida alaabta ka keento. Islii waxay iska bedeshay deegaan waxayna isku rogtay xarun ganacsi oo si weyn ay uga socdaan hawlo ganacsi. Isliida waqooyi oo halka uu ku yaalo ganacsiga ugu badan ayaa leh in ka badan 70 suuq waaweyn oo looga soo dukaamaysto deegaanada kala duwan ee Kenya iyo dalalka dariska la ah Kenya sida Uganda, Tanzania, Koonfurta Suudaan iyo dalalka bartamaha Afrika. waxaa la sheegaa in Islii ay bixiso 30% canshuurta gudaha ee ismaamulka Nairobi. waxyaabaha gaarka ah ee uu leeyahay ganacsiga Islii ayaa ah inuu ku dhisan yahay kaash oo aan deyn la qaadan, waana mid ku dhisan aaminaad. taas ayaa la sheegay inay kobcisay dhaqaalaha Soomaalidu ku leeyihiin dalka Kenya. haddii aad dhex marto Islii maalintii waxaad dareemaysaa xawliga ganacsiga ka jira iyo sida ay mashquul u tahay. baabuur alaab gadinaysa, kuwa qaadaya, muruqmaal gaargacan jiidaya, xamaali baabuur raraya ama dejinaya, ganacsiyo yar oo wadada hareeraheeda lagu haysto iyo dadka oo si tarbeel ah isku daba maraya. Islii haddii aad maagto ku dhex lugay aad ayay kugu adkaanaysaa inaad si dhaqso ah ku gaarto halka aad u socoto ciriiriga jira dartiis. halkan ganacsiyada waaweyn ee ku dhex yaala suuqa iyo kuwa yaryar ee wadooyinka iyo sanduuqyada ayaa isbarbar yaala oo u muuqda inay tartamayaan malaha waa tusaalaha furfurnaanta ganacsi ee ka jira xaafadda Islii. Islii waxaa kale ee ka socda oo si weyn uga muuqda ganacsiga dhismaha guryeenta ama waxa loo yaqaan real estate-ka. haddii Islii aad ku nooleed 10 sano ka hor oo haddii ugu soo laabato ma rumaysan kartid isbeddelka dhanka dhismaha ee ka dhacay xaafadda Islii. waxaa suuragal ah inaad maalmaha ugu horreeya aad ugu wararto xaafaddii aad ku noolaan jirtay mar. dhinac kasta oo aad aado xaafaddu waxaa isbarbar socda ganacsiga dhismaha guryaha iyo deegaanka. Islii waxaa ku soo batay dhismayaasha dhaadheer oo weli qaarkood la dhisayo, maalin kasta dhismaha ayaa la dumiyaa si mid kale loo dhiso. dhismayaasha hadda gacanta lagula jiro waxaa ka mid ah suuqa ama moolka BBS ee noqon doona kan labaad ee ugu weyn bariga ee bartamaha Afrika. tartanka dhanka dhismaha waxaa suuragal ah in sanadaha soo aadan ay xaafaddu isku rogto sida faras magaalaha Nairobi ay noqoto xarumo saldhig u ah ganacsi deegaanna meel kale loo aadi doono. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in guryahaas dhaadheer la dhisayo ay adag tahay in qofku guri kira ah ka helo. tilmaan kale ee muujinaysa sida xaafaddu ay muhiim u tahay ama ugu tahay Soomaalida aan nirande. meelo badan oo Nairobi ka mid ah ay Islii ka qaalisan tahay dhanka kirada guryaha. miyaa la dhihi karaa dhaqaale ay soo jiitaa mise Soomaalida ayaa si gooni ah u jecel Islii. midday doontaba Islii waa xaafad muhiim u ah Nairobi dhaqaale ahaan. Islii waxyaabaha sida kale uga socaya Nairobi kale waxaa ka mid ah sida muuqata in Soomaalidu ku badan tahay. taas qudheeda ayaa malaha keentay mid kale oo Nairobi haddii ku jirto aan badnayn waana iskoolada lagu dhigo waxbarashada caadiga ah iyo tan diiniga ah. iskoolada noocaas oo manhajkoodu isku dhafan yahay ayaa aad ugu badan xaafadda Islii. waxaa kale oo Islii aad ugu badan maqaayadaha sameeya cunooyinka kala duwan, waxaana idan la dhihi karaa macaamiisha faraha badan ayay soo raaceen oo halkii ganacsi xoog leh ka socdo waxaa imaanaysa baahida loo qabo adeegyada sida maqaayadaha oo kale. Islii ma ahan kaliya mid Soomaalidu ganacsi ku haystaan. ee dhowr 10 sano ee ugu dambeeyay waxaa siyaasadda ku matalaya Soomaali kale haday tahay heer dowladda dhexe sida golaha sharci dejinta Kenya oo ku matalay Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka soo gala deegaan doorashada Kamukunji oo Islii qayb ka tahay iyo heer ismaamul goboleed oo ay baarlamaanka ismaamulka Nairobi ku matalaan xaafadda Islii wakiilo Soomaali ah. taas qudheeda ayaa ka turjumaysa sida Soomaalidu u kordhay miisaankooda ka qoomiyad ahaan. Islii xaafadii Soomaalidu gumaystu ka soo raray qayb kale oo Nairobi ay miceen badan marnamaadna martigelisay Soomaalida ka soo barkacday dalkeeda
ayaa noqotay aag ganacsi oo si garba siman ah ula tartamay aagga ganacsi kale ee magaalada Nairobi lana dhihi kara way ka dheereynaysaa. waxay dad badan oo wax ka qoray horumarka xaafadda Islii u sababeeyeen inay sabab u tahay ganacsiga ballaaran ee xaafadda qaabka is-aaminaadda ah oo ay Soomaalidu ganacsiga u samaystaan taas oo sahlaysa bay yiraahdeen in lacag waqti badan qaadan lahayd lagu soo aruuriyo waqti kooban. midaas oo lagu daray hibada Soomaalida ee halabuurka ganacsi ayaa xaafaddan sanad ka dhigtay mid ballashay oo hal mar si xawli ah uga soo martay xaafado lamid ah ama ka horreeyay. Islii xaafad cirka ku socota taas oo ay daliil u yihiin dhismayaasha dhaadheer iyo ganacsiga ballaaran ee looga yimaado ilaa bartamaha qaaradda Afrika. dhinaca kaliya ee Islii lagu dhilay ayaa noqon karta nadaafadda iyo wadooyinka oo si fiican u hagaagsanin. walow dhankaasi wax laga yiri qabtay oo aysan sidii hore ahayn weli si iskuma dhigmaan ganacsiga sida xaafaddu tahay nadaafad ahaan. xaafadii dhowr iyo 30 sano iska dansaneyd ama ganacsigeedu gaabis ku socday waqtigan oo mid cirka maraysa oon ganacsigeedu kaliya taaban Kenya ee u gaaray guud ahaan bariga iyo bartamaha Afrika. waxyaabaha loo sameeyo guusha ganacsiga Islii ayay dadka qaar ku sheegaan Soomaalida oo alaabtay aan ku hoosin kuwa kale ku gada qiimo aan macaamiisha yareenin waana sababta ganacsiga xawliga uga socdo xaafadda Islii.